ayaga awlaad wanaagsan ilaahay nooga dhigo ilaahay kuwa wax barta ilaahay nooga dhigo berri ka maalin idinka kaliya ma ka rabna anfacaad berri ummadoo dhan inay anfacaan inay idinka anfacaan naftooda inay anfacaan waayo waxa maanta ka raadinayna marka insha Allah oo wada joogi doona waxaan jecelnahay hadii ilaahay yiraahdo maanta inaan meesha tan aan ka wareegno oo ilaa iyo muddadaas aan soo wadnay aan ku wareegi doono meeshii loogu talagalay oo ahayd college-ka inay ku wareegaan balse is awood noo diidan tahay in aan sameeyno inaan ilmihii meesha wada joogeen oo dhan aan qaadno maadaama kafaalada wali nagu yar tahay balse sidii aan awalba ugu dadaalayna waa u taagnaan doonaa waana wadi doonaa codsiga maamada ay soo sheegtana oo ahayd dugsiga yowsa sii baabi'in maadaama caruur kamida laga tagaayo oo meesha sii joogi doonaan إن شاء الله أنت أودين أيضا تأكسو دلالينا دوكسي سيديس إنه نولاده خير الله يسير المهي أي معناها أي دوكسي أي سيد دكتور وأكسو دلالينا الله وين هالنلا بريء أنا وده توجنا وحتيين ضد ما عرفين أو ما عرفين لا ظلمي ظلم كقف ظلما إلهي دعودي سوء أقبله مساكين واي المأوانا هي سكان إلهي أنا وده برينا إن الله نوسقره وأنا كان إلهي نافذ ذايا الدوامة ده الله نديه سو الدوبيو هذه فضل الله واي إله عارفين كان سميه ما أنا سمين كرنا ما قلبي جانا أساكو سوري ده أساق أنه أود أنه إلهامية أو سميه وحنا يري مرك إن شاء الله دعويك أدعي ستاني كميتها إلهي هاللوجو ما هاد عرشو أساق ما هذا صغناته مرك وحنا جعلنا هو يمكن هذانا نفعله أتصور أركتان إلمي هي ماشى لجين دونا ماشى يكون هولان دونا سيد أي تهاي إن معناها هالكاسنا أن إذا كوسو بدون النظام والدكسي يسكي على دونا أي كل جذي على دونتو إن علمه معناها أي معمول كيس نظام أو كي على دونا عنق كوسو دسوني كرا عنق كبيح كرا كل نظام كلا نجيسو بدون لا يفعل أو كم نقدر وحن إذن الله هاي جزاكم الله خيرا. وأنا سؤالك ملائكة مساعدة إن شاء الله بلا تعرف سنين لا تعشان لكن هذا كلش كي يكحرنيان إن كستو أرضيدو أي مركن إن كستو أرضيدو أيهين مركن ترى كمية أنت وحكي جرتي وعندما قار كمية على شيء إن أي يران وجهرين أنتنا أي ما أنت نسيب ويشان المركاسي أي نقدان أرضيدو يورسي كلش كه وحكي برد دونته يوم القرى هدي الله ودي له قلاده أرضيدا الدكسية قرآن الكريم كتربية الإسلام كوم القرى وحي وحكبرنيين بدو لبس سنضاطة لبس سنضاطة حال كمان تأكل جوريان وأي وحكبرن جيران قرآن الكريم كه يمكن وحي جوريان كل شيء أنت رجعوا كم مقطع أو أهمية هذا صراحة هي معمول كمسؤولين تكل الدول من القرى ما أنت هل كان يكون سجيهين إذا مركز أي سجوتون هي المسؤولين تي المعمول كدكسية قرآن الكريم كتربية الإسلام كوم القرى هل كان إذا كان الجوجان مناسبة مسؤولية عصبة كلها الويل اللي قبل بواديار إمك قدر وجديد كي يلصاريا وحالين عكلا كم وقنايا هو يوين كعرورتن ويجوسي سقوتنا عرورته هذا أو كبيرة كلها كان ومركزي مسافة دور كيلومتر إسكوجري هل كمان تيجين كام في قلقل يهل وكيا له كلها كعصب وكلفوق يسي سقوتنا يان قدر ولا البحيان إن شاء الله تعالى. يا عبد الرحمن
sida ay muuqataba waxaa soo dhaqaaqay gabdhihii ugu horreeyay ee kolleejka cusub u guurayay waxaa la saarayaa gaadiid loogu talagalay iyo gabdha dhismahanina oo aad u ballaaran waxaad arki doontaan dhowaan halkan waa ganjeelkii waxaynu gudo geli doonaa gudaha iyadoo ardayda mar dhaweyd ay timid lala diyaarinayo waxaa loogu talagalay 3 arday qof miiskiiba iyo kursiga ku fadhiistaan halkan waqti ayaa la gashtaa ardayga koowaad ardayga labaad ardayga saddexaad qaabkaas ayaa lagu sameeyey waxaa yaala 1 2 3 4 1 2 3 4 4 من 3 4 من 3 والله بيت ولا أفراد ardayda markii wareegi karto qolkiiba waxaana markaas kadib eegi doonaa inta qol ay yihiin ama warbixintaas sida lagu samayn doono waa kan sidaad ka muuqda ardaydan maanta ay soo degeen xilli nasasho ayay ku jiraan inkastoo salaada duhur qaarkood ay isku diyaarinayaan qaarkood ay xoogaa sii nasanayo ay sexdeen waxaa ka mid ardaygan oo kale waa jiiftay kan sidoo kale qaabkan marka ay laba dabaq u jiifaan midkan yarka ah hoos yaa la dejiyey kan garrana kole ayaa la seexiyey marka qaabkan oo kale ayay u jiiftaan ardayda sariirahooda labalabada ah qol kastana waxaa ii seexanaya ilaa iyo 8 wiil ayaa qolkan jiifanaysa qol kastana 8 qofood ayaa seexanaysa oo laba sariir ay u kala sarreeyaan ardaydu waxaa u bilaabanaysa markan nolol cusub oo ka duwan tii hore ay markii hore ku noolaayeen intii aysan soo qaxin iyo intii ay soo qaxanba kadib sidaad arkayseen muuqaalka hore waxaa ka muuqday kaamamka iyo xaafadaha ay deganaayeen ardaydan oo kaamamka qulqul gudihiisa dugsiga ugu dhex yaalay hadda noloshan waa nolol ka duwan tii hore waxay ku jiifaan sariiro kala sarreeya marka hore kuma aysan seexan jirin qaarkood joodareesha dhulka u yaaleen qaarkoodna sariirabaha u yaalaan laakiin qaabka noloshan oo kale ah oo ay hooyadood ka soo tageen oo ay la nool yihiin ama la noolaan doonaan arday iyaga la mid ah ama aqoon kale ah ma aysan soo marin maamada kolleejka waaye oo ardaydan oo wiilkan ayay hooyadiis tahay noloshan cusub kolley way la qabsan doonaan ardaydu marka 8 qof ee meeshan joogta ayaa isku asxaab noqonaysa waxay noqonayaan in noloshooda muddo ay wada noolaan doonaan laba ayay u degan yihiin ardaygan buskudkiisu iska cunayaa noloshiisa cusub hooyada buskud usoo dhiibtay ilaahay ku barakeeyo kan arday kale saaxiibadiis ayuu la joogaa waxaan filayaa in noloshooda wax iska bedeli doonto saacad bilow hadalkaaga halkan waa kushinkii waxa lagu karinayay kulaashka loogu karinayay ardayda agoonta ah ee umul qura qaybtan fadhiga ah waa qaybta wax ku cuni lahaayeen qaarkood gaar ahaan waxaan filayaa inay gabdhaha ay fadhiisan doonaan waa kushinka kulaashka inta waxaa lagu diyaarinayaa raashinkii kuba socoo maanta ay cuni lahaayeen iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ay soo xaroodaan bariiska ayaa halkan ka muuqda saliidii cabitaankii oo ay cabbi lahaayeen ardayda bariiska khudaartiisa oo loo karinayo waana maalintii koowaad ee loo bilaabay nolosha cusub ee ardayda kolleejka umul qura oo ardayda soomaaliyeed ee agoonta ah waxayna ahaayeen ardaydaasi kuwii marka hore baa ogeedeen heerka waxbarasho dugsiga oo dhayli ay u imaan jireen haddana waa kolleej jiifkooda cuntadooda noloshooda cusub ay markaasi la hara qaadayaan maanta oo taariikhdu ay tahay 10 bisha 8 ee 2010 waxaana bilaabanaysaa nolol cusub ardayda wiilal iyo gabdhaba u bilaabanaysa qaybta gabdhaha sidoo kale waan tegi doonaa haddii aan ilaahay qaybtan cusub aad u jeedaan dhismaha jiifka iyo waxbarashada isku leh inkastoo jingad gaar ay ku go'an tahay waxaa degan gabdhaha ayaa degan waa ka gaar dhismaha kale ayay qayb dhexda wa taallaa haddana waxay kaga duwan tahay muuqaalka guud sida kuwan oo kale ganjaalka marka laga soo galo iskama bannaana waddada kuma habaysna iyagu waddada way ka xiran tahay gudahaanu gelaynaa insha allah
qaybihii gabdhaha markan waxbarashadii jiifkii qaybtan waa jiifkii iyo waxbarashadii iskuulka ay maadiga wax ku baran lahaayeen dugsigiina xaggaas waa tun loogu yaalay marka gudaha haddaan u sheegalno qaybtan waxaa sida oo kale sideed gabdhood ayaa qol kasta deganaan doona waxbarashadu sideed ahaan doontaa fasalada waxbarashadu waxay la mid yihiin kuwii hore aynu soo aragnay oo ardaydu markan sida loogu baraya gabdhaha qaybta gabdhaha ayaa loogu talagalay waxaa la yidhaha afar ilaa sideed kuraas iyo miisas ayaa yaalla qaybta waxbarashada ah qaybta jiifka waa soo guduhu ugu yaallaa ayaga halka wiilasha bannaanka ugu yaallay musqushooda gabdhaha bannaanka ayuu gudaha ugu yaallaa ألا إلى الله تصير الأمور حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من